ku faraxsanahay inaan soo gaarnay meel doodihii dhabta ahay aynu geli karno oo aynu isweydiin karno su'aalo aad iyo aad u adag si mas'uuliyadda aynu hayno oo mas'uuliyad weyn ah ay u noqoto mid aan adduunkan iskula xisaabtano inta aanan la gaarin maalinta ilaahay oo nagula xisaabtami doono mas'uuliyaddaas iyo wixii aan ka qabanay arrimaha tacliinta sare waxay leeyihiin sifaad aad iyo aad uga duwan tacliinta kale ee asaasiga ah marka koowaad tacliinta sare waa tacliin caalami ah xataa kelmadda jaamacadda la yiraahdo iyo kelmadda university-ga la yiraahdo macnaheedu waxa weeye waa wax caalami ah waxaa la soo saarayaa wax caalamku uu wada leeyahay waxaa la soo saarayaa qof ka gudbay deegaankiisii qof ka gudbi kara deegaankiisa oo caalamka u gudbi kara oo caalamka la noolaan kara marka haddii aad adigu dadka gudbin weyso ama aada soo saari weyso dad meesha intay ka gudbaan caalamka kale wax la qabsanaya jaamacad ma tihid wax kalaa tahay oo macno kale iyo definition kale leh waxaas wax xun inay yihiin ma ahan laakiin ma aha meeshii loo gudbi lahay ma aha adduunyada haddana waxaa kasii dhashay waxa la globalization carro adag bay noqotay meel la iska wada warhayay noqotay meel is ogyahay noqotay meel aan xuduudo lahayn ayay noqotay marka waa la isku soo duulayaa waa la isbara bixinayaa annaga marka waxaan kusoo badankeed jaamacadaheena iyo qayb badan oo tacliinteenna waxay kusoo barbaartay duruufo shalay ahay oo ka duwan duruufaha maanta jira ka duwan marka taas waxay leedahay taxaddi aada u xoog badan challenge aada u xoog badan ayay leedahay qaar badan oo tacliinteenna ah gaar ahaan tacliinta sare waxay kusoo bilaabatay xilli dowladnimada aysan jirin oo dadaal uu ku yimid isxilqaan uu ku yimid baahi markaas jirtay see loo fuliyaa ay ku timid markaa tabarteena lagu sameeyey marka dadkii marka isku tabar ma ahan isku duruuf ma ahayn waxa la qaban karo isku mid ma aha kartida iyo waxa la haystaa isku mid ma ahan duruuftaasa lagu samaysmay marka duruuftaas 20 sano ka hor sidii aan ahayn maanta marka ma nihin meel waxaan soo gaarnay dowlad ay jirto dowlad anaga aan leenahay ay jirto cidna qabsatay oo inta xoog lagu qabsatay sida hadda shabaab ay rabeen oo kaleeto ama qoryo lagu qabsatay ama ajnabi noo yimid oo na qabsaday oo dowlad noo sameeyay ma jirtee inaga samaysanay dowladda aan samaysanay waxaan ka rabnaa inay noo nidaamiso howlaheena nidaamintaas marka waxay taabanaysaa wixii noo samaysnay ee ku samaysmay duruufaha aanay dowladda jirin taa marka maxay keenaysaa qofku inuu is yiraahdo waxaad ii wanaagsanay ama laga baabi'iyaa wixiisa la qurux badan mararka qaar duruufta adag ee waxaas uu ku sameeyay qofkii iyo xusuusanaya markaasuu leeyahay anaga shalay dhibka aragtay soo marnay waxa aragtay ku soo jirnay ma qolo intay timaado qaarna dowlad sheeganaya qaarna guddiga tacliinta sare sheeganaya ana dhahayo anaga waxaas iyo saas iyo sax ma aha jidkaas marka cusub aan qaadnay ee dowladnimada ah wuxuu leeyahay wax la yiraahdo dariiba wuxuu leeyahay yacni wax ay tahay inaan u bixino oo aan u quurno ayuu leeyahay haddaanan wax isquuri karin dowlad ma noqonayno haddaanan dowlad noqonina caalamka kama tirsanaanayno marka in doodihii hadda waa laga soo gudbaan u malaynaya 2 sano ka hor jiray guddiga tacliinta sare iyo sharciga tacliinta sare iyo meeshaan maxay ahayd shaara la tolanayaa iyo qolyo gaar ahaa dan kula iyo maya wixii jiraya la baabi'inayaa iyo waxaasoo dhan waa dadka cabsi ku jirto oo sabab u tahay ama waxay soo mareen oo ay hore u soo arkeen oo dowladnimada kala kulmeen ama waxaysan garanaynin
oo isleeyihiin waxaas majhuulka ahee soo socdo bahalkaas baase imaan doona amuu ku laqaa amuu ku cunaa ama mararka qaar meeshan uu jooga yaa qofka la quruxsan marka waxaan aad iyo aad u rajaynayaa madaxda jaamacadaha inay ogaadaan duruuftii hore ee la isugu cudurdaari jiray ama wixii wanaagsanaa ay ku samaysmeen iyagoo mahadsan waa laga soo gudbay duruuf kale cusubaa loo soo gudbay duruuftaas kale cusub mid waa inagayna khusaysaa midna caalamkay khusaysaa duruuftaas marka inaan u diyaar garowno waa iska jiifayaa wuxuu sidayda ii ahaanayaan shalay saana aniga ila qunayd maantana waa sii qunaane ciddii damcada waxaas inay wax ka bedasho ama wax ka tiraahdana waa ka hortegaya waa la dagaalamaya taasi meelay ka soconaysa malaha aada iyo aad ayaan u bogaadinayaa bahda tacliinta sare guud ahaan iyo inaan u muuqano dadka dalka hogaaminaya oo hagaaya inaan nahay inaynu u muuqano jaamacadaha waxa aan ka rabnaa in bulshada ay la nool yihiin ay qayb ka noqdaan duruufahooda arkaan mashaakilka jirana ay xalliyaan aynu iska dhaafno waxa dhalanteedka aynu iska dhaafno waxa kumoodka ah oo lagu moodayo oo inaynu iska ilowno meelo badanna waa ka sheegay dadka Soomaaliyeed horumarkiisa wuxuu marti u yahay tacliintiisa waliba wuxuu marti u yahay tacliintiisa sare haddii la rabo macallin in la soo saaro tacliin sare ka soo baxa haddii la rabo in injineer la soo saaro tacliin sare ka soo baxa haddii la rabo in dhakhtar la soo saaro tacliin sare ka soo baxa haddii la rabo in garsoore la soo saaro tacliin sare ka soo baxa marka ummadeena anaga marti noo ah de qofka martida loo yahay soo u dhaqmaa waa soo jeedaa waa ilaaliyaa ceebihiisu asturaa wuxuu sameeyaa inuu wax allaale iyo wixii dadkaas martida u ah ay xumaanay ka arki karaan inuu iska ilaaliyo marka bulshadeena inaynu meeshaas u joogno inaynu xisaabteena aynu ku darno marar badan waa igu soo duushaa dowladda iyo gaarka iyo waa la wada leeyahay iyo waa la kala leeyahay waxaas oo dhan anigu ma ahin dadka aaminsan in wax la kala leeyahay ay jirto بروفيسور جمعالة قدية تعليم سر ملحقة بروفيسور محمد علي فارح كا شلي تعليم قارة أي كشقيني جامعة علي كشقيني مسكيناني سوف ليه بروفيسور جمعالة مسكاسو سوف ليه مركي أو قدية شرعية وحاس لقد دودي قلبي سنة كمجرين هذه أنا قلت أنت قدوميها قدية هذا ودتك كل مدعي دونتي ده كل واحد دونت قلبي كمجرين أسأل سجيل على أن من كان على جابه إن قلبي أي كجرتي كوينا حاجة جوجنا هنا بري أنت إيمان إنسان ماشان أنا جت جوجا هنا حسابك قدرتها وحن مركب وحلاص سمينا يا دنتي جود دلكين أول هاي شار قف أوليه هاي ما أحن ما نقول كرو دن قف أوليه هاي أنت أنا قف أنت ستي ما هذا دن وقف ليه هاي ما كشقين كرا تم القف له نكره إنه كشقير شركة واوين بنجي قروح بدن دكانه واوين شركة أو ديارات هوتيل قروح بدن وحاساجر نكره دن قارع له ماشى كشقيست وأنا قروح بدنانا يا وح أيدينا لما أركو وح كشيء لما أركو وإسكر نولانا يا maybe وإسكر راح يسنا لكن ماشى أن سوى أني دمانتين وماشي sacrifice وكإيماناي وماشي أننا لقينا وحن هيري كرنودن إلى هورنا وأم بحنا لقينا وماشي أدو يرتاحي مع السنة إن هذا الشيء ماشي عشان سو أدنى مركا إننا الآد أين الأساسي كلا بحنن تقودن بيس ودقنين يا جماعة لكن ما رياليتي جو دلكن إسبدل الآد حوجنا كويني isbedel kaas wuxuu keenayaa globalization ka aan sheegay cawlamadii aan sheegay wuxuu keenayaa in lagu yimaado marka meel kasta loogu imaano shirkadii diyaaradaha joogi jiray waxa soo kordhay 10 shirkadood caalami ah oo ka diyaarada fiican oo maxaan ku iraahdaa ka degdeg badan
oo ka kuraas fiican oo ka service fiican ay yimaadeen bangiyadii waxaa u yimaaday bangiyo caalami ah oo iyaguna servicekoodii waxaas iyo bixinayo u yimaadeen jaamacadahana waxaa u imaan doona jaamacado caalami ah oo ka hanti badan oo ka khibrad badan oo ka aqoon badan inaan marka ku talagala meeshaydaanan sii jooga dalka aniga iskale anigu ii xiran yahay ma qof banaanka ka yimid wax igu sameyna ma jiri doonto inaan u diyaar garowno marka competitionka noocaas ah inaynu u diyaar garowno oo markii jaamacadaha adduunku yimaadaan dee dadku wixii wanaagsan oo tayala ayay dooran doonaan oo ay la imaan doonaan inaynu marka maanta u diyaar garowno wax kasta oo marka dadkeena lagula tartamay qaar badan oo dadkeena ka mid ahaa mar kasta adkaystay oo ku guulaystay inay tartankaas ay u babac dhigaan oo ay qayb ku yeeshaan jaamacadahana inay ay taa ku guulaystaan u diyaar garoobaan maxaa kaa maqan xataa danta hadday ka lifto oo arrin inaad aada uga fikirtaan ay tahay inay jaamacadaha isku biiraan inay heshiiyaan inay wax wadaagaan maxaa diidaa inta ka fikirtid waxaygaana ila quman ila fiican intaydaana ila toosan ila وني إنا ودي وينا لقى يا باي ما أنت إسوره يسنو صوب قرا محان إسكك عشان كرنا محان ودي يلان كرنا محان سمين كرنا إن اللي يراه مركنا مسكح لنا فرتان وقاتان عالم عن كل عالم كاسواي مدة يقدم بيسو أقويان كباتين موقال كحن دلكين يدكين اللي قبل حنا إن كهرتنا على مرك waxba ma nihin waa baaba'ayna kuwa darad maalin kasta waxay dhahay ma kambala la isugu tagaayo maxay ahayd waxa soo saarayo dawladaha Afrikaanka go'aan soo saarayo ayaga sidii aan isu dooran lahayn insan isu xukumi lahayn guddigii noo maamuli lahayn iyaga sameeyna macquul ma tahay dad Soomaaliyeed ee qarnigan jooga ee waqtigan jooga inay ku fikiraan wax maalmaha kamid ah 15 sano ka hor 15 sano ka hor inteena sideen ahayn 15 sano ka hor dadka aan wax barnaa sidee ahaayeen meeshii ay joogeen dadkeena ku celinayna in loo jeebiyo oo la dhageysto oo laga aamuso ma mudno ma shabaab albaabada ka soo degay irdaha ka soo degay heblaha ka soo degay Yunusaama naga tagaysa inta naga tagaysa waa kala cararayna waa kala waxayna dadka loogu goodiyo iyadana mid aan aqbali karna ma aha hemiska waxaa la ii sheegay inay ku jiraan 200,000 oo arday ku dhawaad oo jaamacad ka dhigata dalkeena Soomaaliya macnaheedu maxaa waaye waxay u dhaxayaan 18 ilaa 25 sano jir bay u dhaxayaan ma argagixisada 200,000 oo qof oo dhalinyaro ah haysato xagee marka anaga wax naga dhiman yihiin xagee wax naga laaban yihiin mas'uuliyad kale oo ay nasaaran waay waxaan aad u rajaynayaa dawladaha caafimaadka qabo kuwa aan hadda dhageystay iyo kuwa kale ee adinku dhaxdiina ku jiraba inay noo soo saaraan wax u qalma dalkeena ma aha wax u qalma shalay ma aha wax u qalma maanta dalkeena mustaqbalkiisa wax u qalma inay noo soo saaraan marka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa guddiga tacliinta sare